anugu waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii dagaalka intuusan dhicin waxbarashada dalka dibadda uga aaday ma joogin dagaaladii dalkan ka dhacay laakiin waxaa fursad ii noqotay 2000 inaan ka mid noqdo ergadii carta kadibna aan ka mid noqdo dadkii fursadda u helay inay wax ka dhisaan dalka cabsi iguma jirin anoo og in dalkan lagu dagaalay magaaladan markaan nimid burburtay laakiin waxaana iloobi karin qurba joog raga oo tiro badan oo ila mid ahaa oo professor Ibi xildhibaan Ibi uu ka fadhiya halkan oo maalmo iiga soo horeeyay meesha markaan la soo fariisto yidiiladii iyo farxadii ka muuqatay ahayd marka ugu horeysa kalsoonidii uu noo abuuray madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo anigu xataa aan la kulmay intii uusan shirka furin 1999 mar uu dawladda Italiya ka gadaayay mashruucan in loo ogolaado jimca inaan nasiib u yeeshay inaan kula kulmo masaajidka Roma asagoo Soomaalidana ku wacyi gelinayay waxaan oran karaa qofkii ugu horeeyay ee dareenka igeliyo in oo arinta ka soo ifbixi doonta carta inaan maskaxdayda iyo ishayda aan ku hayo ina suurageliyay inay ii fududaato inaan imaado marka ma hadda ugu horeyso waxaan u celinayaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo anigu aan u aqaano aabihii qowmiyadda ummadda Soomaaliyeed ahna madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti waxaan rabaa inaan u mahad celiyo sida professor Imaan uu sheegay shacabkii reer Jabuuti ee carta iyo weeca ilaa Jabuuti daadsanaa cadayga iyo raashinka aan cunayno iyo guryaha aan deganahay nadiifintooda oo aan cidina mushaar ku siinaynin 6 bilood u heelana in ay arkaan Soomaaliya oo lugaheeda isku istaagtay oo dawladeedii dib u yagleelatay waxaan ogahay ilmo badan oo maanta qaangaara oo halkan joogo oo jaamacada inay dhigtaan laga yaabo in hooyooyinkood ay naga soo raaceen maalinka Jabuuti taas oo keentay kaliya inayna ahayn ay aad u xoojisay isdhexgalka nagi Jabuuti iyo Soomaaliya qodbada waxaan rabaa markiina uga faa'iideysto nin dhalinyaro oo markaa yimid oo ka bilaabay mansab wasiir xildhibaan iyo wasiir isku wada ahaan karin waqtiga wasiir ka bilaabay wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha kadibna xukuumadii dambe ee Xasan Abshir Faarax oo rabo waa xanuunsan yahay inaa u duceysaan ahaana ra'iisul wasaarihii labaad ayadana wasiir dawlad ka noqday inaa uga faa'iideysto wax yarna ka ifiyo xaaladii aan ku sugnayn iyo xaaladda maanta wasiirada halkan ay hor fadhiya ay ku sugan yihiin iyo xafiisyada ay ku shaqeeyaan farqiga u dhaxeeya markaas waxaa dareemi kartaa dawladda Jabuuti iyo dadkii yimid oo dad badan halkan aan uga tacsiyeyn doono inay dhiigooda u daadiyeen dib u yagleelidda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee maanta sheeganay xukuumaddii markii Cabdiqaasim iyo ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha iyo baarlamaanka ay yimaadeen baarlamaanka waxa uu fariistay meesha hadda aan iraahno iskoola bulutiya oo u noqotay xaruntii ugu horeysay ee ku shaqo galeen muddo gaaban gudaheed ra'iisul wasaare Cali Khaliif Galeeso wuxuu dhisay 25 wasiir iyo 50 wasiir ku xigeen aan xafiis lahayn guri dawladeed ay degaan aan lahayn hotel la yiraahdo Ramadaan oo hadda magaalada aan si fiican dadku u aqoonin in ay geedaha ku yaala in ay noqdaan xafiisyada wasiirada sawirro badan oo hadda aan hayo dib u fiiriyo wasiirka qorsheynta hadda noo fadhiyo wasiirka qorsheynta waqtiga Allah u naxariiste raga aan raba halka inaan ka xuso aaba oo taariikhda Soomaaliyeed iyo dawladnimada Soomaaliyeedna ahaa Xuseen Cilaabi Faahiye iyo tiimkiisa oo geed hoos fadhiya oo falanqeynaya muxuu noqon doonaa qorshaha dalkan maantana waxaa la dhammaystiray oo dhisan wasaaradii qorsheynta qaranka oo qurux badan oo aan hubin in wali la furay
farqiga iyo inta u dhaxeeya mahaddeeda waxaa iskale reer Jabuuti iyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geli in uu fursadda noo abuuro dawladnimadii halkaa ka bilaabatay sanad kadib waxaa noo suura gashay meesha nabad sugidda hadda ay degan tahay inaan dhigano xafiisyadii ugu horeeyay ee golo wasiirra ay fariistaan kadib markaan caawimaad ka helnay hay'adda qaramada midoobay ee UNDP magaaladan waxay ahayd magaalo burbursan magaaladan waxay ahayd magaalo u kala xiran laba qad waqooyi iyo koonfur dawladda carta waxa ugu horeeyay ee sameysay ay ku guuleysatay waxay ahayd inay qadkii cagaarnaa qaad ayadoon qori isticmaalin ayadoon xabad isticmaalin waxa ugu u fududeeyana waxa ugu horeeyay markii la yimid golihii wasiirada iyo baarlamaankii labada dhinac ay kala degeen waxaan xasuustaa markii ugu horeeyay oo aan ka gudbo waxaan ku soo degay hotel saxafi oo markaa aan ahayn dadka ciidanka jooga ciidan dawladda taageersan ahaa dad taageersan Xuseen Caydiid oo markaa ahaa hogaamiyaashii magaaladan aan ugu nimid ee hubka haystay laakiin waxaa u nimid allaha u naxariistay Cabdirashiid Ilqayte oo ahaa nin dawlad yaqaan ah ganacsi yaqaan ah noo suura geliyay annagoo badan oo xildhibaano iyo wasiirro ah oo ilaa hadda oo u dambeysay aad arkayseen inuu ahaa hoteelka ugu badan ee xildhibaanadu ay degan yihiin iyo wasiirradu wax kale ma ahayn asagoo ciidankiisa iyo fakriyanba aan taageersanayn dawladdii ayuu wuxuu noo suura geliyey inuu nadejiyo naguna ilaaliyo meesha saaxiibtinimo qoto dheerna ay ka abuuranto waxaa qiyaasi karaysaan marka dawladnimada meesha ka soo bilaabatay qadka cagaaran wuxuu ku qaadmay dadkii halkaa deganaa in tahliil shaatax oo hadda halkan fadhiyo oo ah gudoomiyaha ururada civil society-ga usbuuc markaan joogay inuu gurigiisa casho noogu sameeyay aniga nin kale oo wasiir ku-xigeen ahaa markaa cali caraale la yidhaahdo oo hadda ahaa gobornarkii ugu dambeeyey ee gobolka hiiraan ayandhow laga qaaday cabsidii igu jirtay waxay iga baxday markaan xuduudda muuse suudi oo gurigiisa meesha ka horeysa isbaarada ay taalay aan ka gudbay anoo nabada soo cashay 4 saac iyo barna ka soo noqday oon cidina ila hadlaynin waxaa noo caddaatay in shacabka muqdisho oo aan horey ugu daawanay soo dhoweyntii ay u sameeyeen cabdiqaasin salaad xasan markii uu imaanaya muqdisho oo wiil iyo gabar iyo oday iyo caruurba ay bannaanada isugu soo baxeen inuu dhab ka yahay ninka hubka haystay ee dawladda taageersanayn uusan dan iyo muraad ka lahayn in xukuumaddu ay waqooyi iyo koonfur isaga gudbi karto qadadii labaad waxaa noo sameeyey Dr. Dufle oo wasiir ku-xigeenadana aan iskala mid ahayn oo asna deganaa waqooyiga muqdisho meel xaafadan Cabdicasiis oo hadda guriga aan ka deganahay magaalada u dhow arrimahaas fudud oo haddaa fiiriso aan culays badan lahayn yaa waxay asal u noqdeen dhaqdhaqaaqa magaalada labada dhinac in la isaga gudbi karo taa marka waxaa uga jeedaa shacabka ayaa iska lahaa shacabka muqdisho ayaa iska lahaa rabitaanka dawladda anagoo og in hogaamiye kooxo hubaysan oo zoo bah la yiraahdo oo anigu aan waqaanay abahay ciidanka cirku ahaa ee ciidanka cirka inay isticmaalaan inuu nin guri ku haysan karo aan ugu nimid ilaa inta ay hubaysan yihiin hogaamiye kooxyadii magaaladan deganaa haddana rabitaanka shacabka muqdisho ayaa wuxuu suuro geliyey in ayagoo saa ay u joogaan annagu inaan inta koonfurta muqdisho ka soo baxno hotel ramadaan oo waqooyiga muqdisho meesha ugu dambeyso inaan kusoo shiri karno maxaa la yidhaahdaa arrimo dawladeed uga hadli karno baarlamaanka oo iskool buluusiya ku yaala tegi karno arrimahanaga ka soo gudan karno habeenkiina annagoo nabad qaba sahlanayd ra-iisul wasaaruhu inuu inta nala ballamo aan 4 saac oo habeenimo u tagno ramadaan laga yaabay 6 saac ilaa 1 inaan kusoo gaarno walaalayaal dawladnimadan marka meesha laga keenay oo Dr. Baadiyow iyo Dr. Iimaan iyo aqoon-yahanadii u gogol xaaray ay fadhiyaan maanta meeshan shirka cabta in la qabto iyo
raggii dhiigooda u huray ee u dhintay ee ay ka mid ahaayeen generaal xayd doctor burci rag badan oo aanan soo koobi karin maxaa la yidhaahdaa halkan aanan ku soo koobi karin oo haddaan bilaabo laga yaaba in ay dadka kale khudbadooda aan ka qaato laakiin aan ka xusaayo maxaa la yidhaahdaa ragga in ay yihiin dhiiggii ay u daadiyeen dowladnimadan maanta aan ku harsanayno ee liido annagoon cabsi qabin aan halkan isugu nimid xafladii aanan ku xusayno una mahadcelinayno walaalaheen jabuuti iyo madaxweyne ismaaciil cumar geelle isla markaana aan rabno generationka hadda jira inaan u gudbino in dowladnimadan ay ku timid rabitaanka shacabka halkan iyo magaalooyinka kale oo maanta ay ku faaftay ee ay joogto waxaan rabnaa marka annaga siyaasiyiinta ah meel walba aan joogno in aan rabitaankanagu mararka qaarkood uusan naga xoog badnaanin aan isu dhimrino aan ogaano inay tahay qori isu dhiib cabta waxay ku wareejisay imbagatina waxay ku wareejisay ARS iyo dowladdii sheekh shariif oo madaxweynaha ka ahaa tii horena cabdulaahi yuusuf allah u naxariisto madaxweynaha ka ahaa ayaduna waxay ku wareejisay ayadoo ku meelgaarkii laga saaray dowladdii xasan sheekh madaxweyne xasan sheekh maxamuud asna wuxuu ku wareejiyey madaxweyne cabdulaahi farmaajo oo maanta joogo qofna marka uma sheegan karo inuu keligii leeyahay dowladda marka waxaan rabaa oo keliya inaan ku soo qatimo ma hadda walaalaheen jabuuti waxaa anfacaya caawa markay TV-ga fiirsadaan badanadii quruxda badnayd hoteelkan quruxda badan ee elite inaan xusayno weli xasuusano qalbiganagana ayna ka bixin annaguna horumarka intaa la eg aan gaarnay oo amni leh oo horumar dhaqaale leh oo horumar dowladnimo leh welina meeshaan rabnay ma aan gaarin 20 sano ka badan aan qaban karnay laakiin haddana annagaa weli lugaha isaynay waxaan rajaynayaa anoo u reebayo u hambaynayo saaxiibaday iga dambeeyey aanan koobi karin keligay taariikhda jabuuti hambalyo ma naga dhammaanin taargetkii aan rabnay ma aanaan gaarin mana daalanin waxaa idinka rabaa inaad 2 laabtaan 3 laabtaan dulqaadkii aad samayseen 20kan sano idinkoo og walaalo iyo saaxiibo badan oo naga mid ah inay naga hooseeyaan maanta aydan isdhiibin meesha aad ka wadaan origana aan u dhiibno asaga olooyinka naga dambeeya wasalaamu calaykum